soo noqosho wacan wanaagsan ma sha Allah tabaaraka Allah waxaan ka hadlaynaa mashruuc maalin dhow bilowday in lagala hortago ololaha socialka maxaad ka taqaanaa maxaa u leedahay aqoon waa ugu horeyntii in aan aniga iyo adiga isfahano inta aadan degdeg ku galin aadan arkin walaasha Soomaaliyeed afkaada aadan waxba ugu eedaynin social ilma iskama qaataan intaadan dhihin intaada falin ka fiirso ila dhageyso markaas ayaan guda galaynaa haye bal adigu hadashe walaasha ursate okay waynu he bismillah يعني أن يكون حيادي عن أي utredning hos socialtjänsten, då måste man vara socionom. Ingen utbildning till socionomer utbildar i hur man gör rättssäkra barnutredningar. intaas ayaan rabaa inaan ku fasiro socialka wax aqoon ah uma lahan mana ay soo qaadan mana aysan soo baranin sida loola dhaqmo sharciga ilma qaadashada ma haystaan building ay ku tixgeliyaan waalidiinta ilmaha ka qaateen ama waalidiinta ilmaha ka aruursanayeen iyagoon aqoon u lahayn sharciga meesha ku yaalana kuma dhaqmaan shaqadooda iyo noloshooda gaarka ah ayay ku lifaaqeen sharcigi wadanka Sweden u yaalo dhan waxa burburiyay dan gaara dad wato oo akoonka dawladana nagu dhibaataynaay ku soco عاشر dhageyso faaduma soo sheegta kan Swedish waa baay hello social ma qaldamaan إذا واحد يريد يسوي تحقيق الترجمان إذا السوشيال يريد يسوي تحقيق فالمفروض المسؤول يسوي تحقيق المفروض يكون سوسيونوم وهذا السوسيونوم لابد أن يكون اوكي سوشيالك يعني أن يكون حيادي عن أي يعني laga gudbina waa socota لحسن وعبدت حنون صنبا أنا كحنون نقول شيء جايان كاركوت كشقي دت حنون صنع فرح نوقلين مركا تراديد ور أديك إلا مكهان شرعيان لوجان محاكو قرن عنق اللبي تمسنا مركو جيرو إنه أساقس بستامين كرو أديكنا شني تبنجر إتدبي تبنجر آيات ربطة إنها تحوكتو نواسي شرعيك كاني سفاريكو ما قرنه مجاب كادت كوضتا ويبحانون صندهيد قف كان كل أحد لاي وقف شن كنيني سو عنتو dad bilaan naxariisa meesha la keenay dad xanuunsanana la keenay ud billi wax aan ma bahaystaan waxay kula doodayaan sharci ma baahan يعني أن يكون حيادي dad badan ayaa ka qayb galay sharciga ilmaha ajaanibta inta badan ay ku xakuntaan waa sharciga xooga oo nolosha dadka ka dhacay LVO-ga sharciga la dhahay ay nagu xakuntaan alkaluusta manihin dadka nolosha ka dhac manihin aqligeena waa tamaam caafimaad darana ma haysato xoog iyo xayaan leenahay shaqooyin aan ka shaqaysan karnaa istiil aan ka shaqaysanaa nidaamka iyo sharciga wadanka aan la joogno ayaan aaminsanahay qaynuunkiisaan dhoornaa laakiisa markay naag abay barcab qabta laga soo adeejiyo sharcigana ay inta dhigto koob kafee ay ku kor cabto ay u jeedo bas shaqadeeda iyo mushaarkeeda ay shambri ka bacdina ku soo wacday ku tiraa amayaal ama diid amayaal hero maxay ka wada ma taqaana waxaas ma taqaana waa la hadle contact ya waalidiinta la suubiye maxaa contact la suubisay sharciga oo dhan badooda baa laabatay abay barcab qabtaay
كو مدة كلو أنيقا لا يقوها يستان كوشيغا وأنيقا لا يقوها ناك تقايفك ما بأركو وإسقاريسا هل مر أو سلمان لونتي انتي سنين سلعينيس أتاقي هل كي مرة وكقول قاري ويلكي واتا بنانك وقبحصد الحمد لله إلهي بقى إيقا قبتين شرطي ذا الله إيقا قبتين عمري يكو جلتو والله بالله أبمي إن ده هذا كومر ما يستري كرتو مركا كواني كاسو أديجنين ما ننكست أكون قدولة نقول دباتين ويا ما شاء الله أنا ضد بدنا ماشي يجوغي وغير الله سير ولبنا أنا كران utredning hos socialtjänsten, då måste man ha sociolog. Ingen utbildning. ما بحث تام. Utbildar i hur man gör rättssäkra barnutredningar. إذا واحد يريد يسوي ilmaha xatii markay ku suubinayaan udreetinada qaar qaladaa ku jira cunugiyo waalidkiis maxabo ugu oynay ileen cunugeyga oysiisa cunugeedi waqti ma siinin ana keenay la hadlays waa dad naxageebaan tagnaaba marmarka qaar waxaan leenahay war say u shaqaysiin beenta cunugaada waxba ma ka gadi kartid wax ma u gadi kartid cunugiyo weyn oo qaawanay ku keenayaan baraf dhacaya cunugiyo surwaal aan qabowga ka celinayna cunuga oo koksana ku imaanay oo gacmihi la laabtisas qabowga diris jarayna because lacagteeda ay wadataa marka waxyaalaha qaar waxay kaamirooyinka u diidaan ay kamid ah waxay kaamirooyinka u diidaan kamid ah waxay ku leeyihiin inta ma dhaafi karo ko adaa lagu waabsana cunuga wadnaha laga soo bixina adiga waa lagu waabsana halow mi maqlay ha maanta cunugaada la kulmay waa ogtaa ma ha see tahay ma dhihi kartid ilaahay oo carabku gadaal iyaga soo noqda waxa lagu dhaafay guriga dhibka ku qabo ma weydii kartid adiga qosol u muuji haduu ooynayo qosol u muuji waa cunug guriga ku dhiban iskoolka ku dhiban dadkii u geeyeen ku dhiban ayaga say telefoon u dirayeen telefoonka ka qabanaynin cunug markuu ku imaado furfurmaayo marka aniga waxyaalaha qaar oo ilaahay subxaana qaadirka ugu xamdi ugu shukriya waxa kamid ah waa ka duceystaa markaas ilowsho ku dhaca cunugayga tataray ayaga qadka ka baxay maqaayada hadaa fadhino kale waad hadaya hawo saacadii haba ku orday cunug oo shashaga Salman hada waalidka surayo hada waalidka iyo hooyada iyo aabaha anu fursad ina siisid waaye ma loo baahno barabaleenada oo ina soo ilowdid waaye marka meesha imaanaysa nay waa ina u sheego waalidka dibkooda hooyo cuntada leey ma siinin hooyo grisa leey u qasba hooyo dhar ma haysto hooyo iskoolkaygi hooyo waa la iyaalay hooyo waalid cunsuri markaas aan igu wad hooyo hal sharciya u qaata marka ani ilmahayga markay tagaan ayaka ma fasaxo miiska aan kawaan ku saaraa sharciga kaas iyo kaas ma qabo cunugayga hortiisna inaan iigu tuso ma rabin cunugayga ayagaaba ilmahayga ayagaa sasane war maxay tahay qaynuunka waa la hadlaa waa laga bedelaa waa loo soo adeegaa waa loo soo gadaa ha maya dhar qaaliye rabaan naakada kor waxay ugu tiri gabadhaada kabaha fillayna weydiisatay guriga hooyaday markaa iga soo wadayseen kaba filla iyo dhar filla iyo fanaanada filla iyaa qabe saan ku dhaha sootaa tirinaayaa waad silcisay sootad akoonka dowladii ii keensatay sootad ku dhibaataysay ilmahayga sootad anigii ugu dhibaataysay akoonka dowladda woo kaana sawaaye cunugan waxuu rabo waa inaa ugatid because adiga ayaa dowladda waxaa ka dhaadhacsiisay waxaan badbaadinay ilmo yaalba u baahan caawin ina ilmo u baahan aan caawina soo ma dhahayd xabiibti ilmaha ka next time aan is arkayno marka kale cunugaygo qaawin iyo cunugaygo oynaay iyo cunugaygo shirkadan ninka heestan waa la hadlanay midaa ku fiicna ayaka iyo socialka iyo shirkada familka bas aan war ku lahayn shirkadii aan la hadli jiray socialka la hadli jiray sharcigeyga meeshaan ku qaadan jiray cunugayga hadda waan diray waad u jeeday intaas ka badan respect ku masuubinaa bini'aadinimo dhimashaan ka xiga cunugayga dambo oynaaya la ii keenin aniga sharciga qaynuunka raacsanahay waana aaminsanahay waana suganaya ya waxaad leedihiin baaritaan kugu socda raalli ka ahay laakiin cunugayga baahan cunugayga qabowga dhar la'aan yaa weylak yaana arkin cunuga waa cunug islaam
diinta islaamka ku dhashtay wadan islaamka kasoo jeeda lagama yaabo ingiriis lagu qasbo mana siin kartid mana lagu abiyuusi karo haddaad cuni weyso aday ku taala waa dhimanay mala oran karo marka calaa kulli xaal socialka noloshooda runta ah adigu ma ogid tartiibtaada marka socialka aqoonta aad u leedahay waa ilaa intee u leedahay social aqoon waxaad u leedahay ila tahay sister intaysan kusoo faragashan markay kusoo faragashtaan sideena camal ayaad baranaysaa beentooda naxariis daradooda qaynuun darada ay wadanka ku haayaan oo sharciga aysan ula dhaqmaynin ilmaha ay qaataan dadkan noo banaan baxay ayaa rabaa inaan wax yar istaajiyo dadkan waa dad ilaahay subxaan qaadirka noo soo diray waa group Swedish dowladda ka tirsan yahay masaas xumada ay socialka dadka ula dhaqmayaan siiba ajaanibta ay diideen ay ka soo horjeedaan cadeemaha dhan ay urursanayaan waa ururka aan galoon ku sheegay marka ma u baahnid ila soo xiriir hadda taa Soomaali ma haysataa warqad sax xaqaada ma lagu duudsiye ilmahaadii been ma loo qorto maxkamadda ma la geystay adiga been ma lagugu afjigay oo ma la yiri waalidkan lama shaqeynaayo adigoon dhib iyo dil geysan ma lagu yiri waalidkan waxbay dilaan sharciga xoog ma lagugu haystaa ilmahaadii oo ku rabo ma la diidan yahay su'aasha waa intaas hadii ay tahay dadkan waa dad Swedish ma ahan Soomaali mana ahan Carab mana ahan ajaanib cida doontaba waa dad Swedish dowladda ayay sharafkeeda iyo wadankaba ay dhowrayaan Sweden waxayna jeclaysteen dadkan dhiban ee laga gardaran yahay ee la xaqiraayo socialka aqoontoodii ayaa hadda hoos u dhacday waxay suubiyeen socialka in ay ilmihii business ka suubiyaan macnaheedu ay tahay loogaarka ama sharciga meesha ku qoran inay sabab ku dhaqmine jooskooda ay ku dhaqmaan maxkamadana waxay rabaan ay geystaan ilmihina loo yariin ayaga ay rabaan u qabtaan waalidkii ilmihii iska hor keenaan sidaas ku ansaxsadaan ee cunugiyo 12 jirna xoog sharciga ku sii haystaan haddaba maxaynu eegaynaa haddaba waa kan dadkii sharciga yaqaanay Allah noo soo dadajiyay ilaa soo xiriir hadii aad haysato wax runa iyo waraaqyada runa insha Allah waa guuleysanayna dawladda ayaana la horgeynaya loo yarin iyo wax walbana ayaga ayaa noo qabanaya salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh haddaba wala soo galay